xaafadda Hayayaabe waxay ku taalaa cidhifka magaalada Boorama waa saxaafad ay ku dhaqan yihiin dad danyar isla markaana aan helin baahiyaha asaasiga ah sida laydhka biyaha caafimaadka iyo waxbarashada oo inay haysan jidayo maraan ku darso xaafadani waa mid ay xukuumaddu iska indha tirtay muddooyin badan oo ay cabasho ka muujiyeen baahiyahaasi aynan sida buuxda u helin soo maray wadooyinka waaweyn ee magaalada Boorama bar ka mid ah si ay u muujiyaan cabashadooda una gaarsiiyaan maamulka gobolka ka degmada iyo xildhibaanadii ay horay u soo doorteen waxaan u sheegaynaa in aanu maanta wada aanu marna aan laanahay oo meel awlaadayadii aydu cunayso oo madrasadii meel aan u marna aan laanahay iskuuladii meel aan u marla aan laanahay oo meel aan istaagna aan laanahay waxaan u sheegaynaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyagaba waxaan u sheegaynaa wardad aad samaysateen oo gacmaha ku haysataan baan nahay bal wadooyin noo saara dawladda hoose waan ku daalay 30 jeer baan ku noqon waxna nooma qabanayaan balse nasiib darro jawaab waafiye kama helin sida ay ka hor sheegeen Engineer Faisal Ali Waraabe oo maanta booqday xaafadaas isla markaana uu kuurgalay nolosha ay ku jiraan dadkii iyo baahida taala goobtaasi ubadka ka soo reeyay hadda halkan ay ku jiraan dalka oo dagaalama dadka qoriga u sitaan mudaharaadkii waa lagu laayay awlaadeedii waa la laayay dumarkeedii waa la laayay galay dawladda hoose ubadka iyaga iyo dumarkii oo kala hadigintay ka dhigeen dad waa laga daawaday dal iyo dibadba inamadi dirayska lahaa dumarkii oo kala saaw ku tumanaya laga daawado dhibaatooyinka saas ay noogu soo badnaan maantana ma xaafado hatta hadeerto markuu imka roobka dilahay nimcadiisa keeno markuu imka roobku bilaamo wadada waxa ba yarata hatta cagta looma ogola baabuur iska daay imka waa inta roobka uu qaadsan yahay waa la ogolay baabuur iyo cag wixii mara wada ay xaafadu leedahay balse wadadii awoodii wali lagu furi lahaa lama hayo dadkani ayaa ahaa kuwa ku farxay dhex joogsiga iyo imaantika uu soo gaaray gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID ahna musharaxa jagada madaxweyne ee xisbigaas oo markii ugu horeysay maanta ka jawaabay baahiyihii iyo cabashadii ay tabanayeen dadkani isla markaana noqday mas'uulkii ugu horeeyay ee dhex istaaga Engineer Faisal Ali Waraabe wuxuu hadallo kala duwan ka dhageystay waxgaradka iyo dhalinyarada xaafadaasi ku dhaqan isla markaana wuxuu ballan qaaday inuu wax la qaban doono xaafadani shacabka ku dhaqan xaafadda Hayayaabe ee cidhifka magaalada Boorama ayaa ahaa kuwa ay farxad ka muuqatay wajiyadoodu kadib markii ay arkeen inuu noqday mas'uulkii ugu horeeyay ee u soo jawaaba Engineer Faisal Ali Waraabe oo inta badan dadku sheegaan inuu yahay mas'uulka kaliya ee isha sida gaarka ah ugu haya dadka ay hayntoodu hayso iyo dadka danyarta عروتها هداني هيلين بين نظيفة هداني هيلين تعليم هداني هيلين عافيمات وعمر قوة قابلة وحنجعلنا بجد كينا إن شاء الله تعالى ميزانية دينا إن نقبض إنه صارنا حوجة عافيمات كي تعليم يا تبا فيصل وانكو دعاء يا لو كدا فيصل وانكو دعاء يا دبكا أجرو سيدا بدا بوسا سيدا براو يبال سيدا بدا بوسا سيدا بريس كتران سيدا بدا بوسا سيدا براو نغاو gabadii Engineer Faisal Ali Waraabe wuxuu halkaasi ka furay xadhigana ka jaray xafiis cusub oo xisbiga uu cid ku yeelan doono waana markii ugu horeysay ee sooyaalka taariikheed tan iyo markii lagu dhawaaqay inay ka jiraan asxaabta qaranka Somaliland xisbigii ugu horeeyay ee xaafadaasi ka furta xafiis jaamacadda magaalada Boorama